محمد إبراهيم ورسمة سعيد عذراوي قف ما هي وقروي ومعجزة صومرتي تاريخ فنك الصومالي ما أفريقيا هاي نقاضنا وهاي نفهمنا ضد كي نقدر شيء ينا نقبل كذي واحد بدل ما يدكوا هدا بدل يكذبوا أنه واجد نوجد بريسوتشيت يقارن يا وراق وحلا لو حلعب وأنا كدورين أنا بشرته وحويا حلا دماغ نكون دبوا حل باكو ديريا وكسوتشيتني واجب نورش كتير جوبني ماذا أول بعد دون كده أما أتكنت دي إلى لنتيه أتراوي دالي سير هذول اللي بيري كده waxaan oran karaa horta marka ugu horeysa waxa uu cid walba kaga soocan yahay maansadiisu waa bad waa malxami waa maanso adduunka oo dhan gacan togaaleynaysa qaybo badan u kala guuraysa ilaa marka ugu dambaysa meeshuu isagu doonayo ku biirto inta uu dhaafi maayo suugaantiisa muggeeda ayaa aad u ballaaran taasuu dad badan kaga duwan yahay takala waxa weeye waxaan oran karaa haddaan hadraawi bartay oo muddo badan wada noolayn saaxiibtinimo aad u qoto dheerna ina dhex martay waxaan ku bartay waa nin isaga iyo maansadiisu isleeyihiin waxa uu hadraawi caan ku yahay ereygiisa ama qowlkiisa iyo ficilkiisu waa nimay iswaafaqsan yihiin soomaalida ka sokow hadraawi waa gabayaa ay bini aadanka oo dhami wax ka baran karaan waxna ka dareensiin kara maansooyinkiisu tabcan waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta casriga ah soomaalida sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta bani aadanka oo dhan qaarad kasta oo ay ku nool yihiin sida bani aadminnimada ah ee uu wax uga tariyey nolosha guud ahaan arrimaha bulshada horumarka jacaylka iyo deegaanka waa fariin uu dhiibo soomaalida iyo caalamka guud ahaan محمد إبراهيم ورسمة وهدراوي إلهي وسهلي فالكنتا الصدودنكا iyo anshaxa dhaqanka Soomaaliyeed محمد إبراهيم ورسمة هدراوي أبوان كوين الصومالية عنك وحويا هدي تاريخي شرته قبل جوال لقوش يكنشري قبل جمهور حين لغة لغة هذا راجع وقاس بوسمي هيا لذين راجع وقاس بيراي سوقات هدراوي سمات بدن أيو كسو بيري ويسقو ككوها ودمنا يسدي كسرت دور صنانته يورو صنانته شخصيتي سولاد هاي يسيد وانو مغانيسا دعدع ولهين dadku ay u haystaan hadraawi markay maqlaan in nin mar walba xikmadu ay ka qubanayso oo aan afka isu darin laakiin markaad aragto inta uu hadlayo iyo dadka uu la hadlayaa si u kooban yihiin iyo haddana ilhaamka ka soo deexanaya ayaa wax lala ashqarano aad u la yaabaa maxamed ibraahim warsame hadraawi shakhsiyadiisa iyo suugaantiisa waxaan anigu u aqaanaa badweyn bilaa xeeliya anu suugaantiisa si aan u fahmo waxaan u kala qaataa saddex qaybood oo kala ah hadduu ka hadlayo tabasho oo tabashooyinkiisa faraha badan leeyahay ka mid yihiin cadaalad darro hadduu tabanayo oo cadaalad doonayo haddii uu doonayo muxuu ahaayay in sidan loo nooliyay si ka duwan loo noolaado suugaantiisa tabashada qusaysa markuu ka hadlayo wax sameeysa malaha hadraawi waxa loogu tala galay inuu town ka hadlo haddana markaad aragtay isagoo ka hadlaya tala bixin suugaantiisa tala bixinta ee uu tala bixin soo jeedinayo iyadana waxa sameynaysaa malaha waxa loogu tala galay inuu taa ka hadlo haddana markaad aragto suugaantiisa tilmaamaysa abuurta iyo quruxda hablaha iyo kalgacalka iyadana ma axlaha waxaad garan karaysaa yaani inaad ninkaas yahay nin qalbi nool leh محمد إبراهيم ورسمة وهدراوي وحنو وذا كلنا كوسجال بقول إحدى يسجالكي تمامه سا لبا قطب ودقدقة أن وحصو أو أنا هاي مدي وسيدا ويقانو أما وطلعوا وحصاحب لماذا اللي يراهدو يو habka uu gaadiido oo ay ku tahay oo macna leh oo uu yaqaan waa midda labaad ee waa halabuurka uu ku socmay oo gooniya
maaha tirada intuu ka yidhaahdo maaha ereyada uu isticmaalo dadku joogaan qof waliba wuxuu leeyahay madal khayaal waxa carabida lagu yidhaahdo ee fogaalka humaaga fogaal humaaga ayaanu ku tilmaansanaa wax yar oo hadduu tilmaanteeda halka uu u marayo hadduu wuxuu rabaa inuu sheego qofkaasi isla weyn iyo isla weynadu dhibtay leedahay qofka tegey ee ku geeyey ee ku yidhi isla weyn hankeeda wiil aan jaraysnayn ugu wara maqaaroo lugta webi u geliyee xagguu ku geeyey wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay caan ku tahay waxa qurux kastuu yidhaahdo tabane la yaab leh buu ka dambaysiiyaa oo optimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaannaa inta uu jeegaan quruxdeeda iyo siday tahay sida uu u cabbiray oo ku yaalla iyo ugu dambayntii wuxuu yidhi kala dhiman adduunyoy maxaan kaaga dhololaa hadraawi uu ka xeel dheer yahay in lagu astaysto abwaan gabayaa ama shakhsiyad waa manhaj nololeed soomaaliya oo dhammaystiran waa wehel aad weheshan karto oo wax kaaga sheegi kara weji kasta iyo marxalad kasta oo nololeed oo aad ku sugan tahay waxaanan ahay dadka ka marakacaya abaalna u haya juhdiga iyo hawsha uu geliyey af soomaaliga falsafadda islaamka wada deganaanshaha xorriyad u dagaalanka iyo xaqu dirarkaba waxaan ka qaadanayaa waxbarashada tuduuc yaroo gaaban uu ka tiriyey gabaygiisii dheeraayo dabahuwa iskuulladu waa dayeen damiinimada ay dhigaan dantay uma soo lugo digtoor cadow way sideen digri cadow way sideen waxa weeyaan waa deeqsi waa niman adduunyadan waxba lahayn wax dhaqo wax dhigo wax dhiso biri maxaad cuni waxaa la isku wada laynaya adduunka dhalanteedka hebra hadraawi shaqa kuma laha hadraawi waxa weeye nin naxariis badan weeye dadkuna aanu kala xigin waxa weeye nin cilmi iyo caqli iyo garasho iyo naxariis iyo wadannimo iyo karti isku darsaday waxaa kaaga filan wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wid wadaan wid lagu yidhi wadha hayla soo gelin hayga jabini weysida buuri